iyadoo maanta xisbiga mucaaradka wadani u lahaa ololaha isu soo baxa doorashada madaxtooyada Somaliland ayaa taas bedelkeed xisbiga wadani waxa uu maanta sameeyay inuu dareenkooda la qaybsado dadka jilicsan kuwa baahan iyo waliba dadka xanuunsanaya ku jira cisbitaalada iyadoo xisbiga wadani uu dadkaasi gaarsiiyay deeqo isugu jira neefaf geela xoolo iyo waliba deeqo raashin ahba cisbitaalka Maandhe ee magaalada Burco oo goob lagu daryeelo dadka qaba cudurka dhimirka iyo waxay mas'uuliyiin ka socotay xisbiga wadani ay maamulka cisbitaalkaasi gaarsiiyeen neef geel oo loogu talagalay in loo qolo dadka qaba cudurka dhimirka xogayaa arrimaha gaarka ee xisbiga wadani Xuseen Asad iyo Ayaan Cali Xuseen oo kamid ah madaxda xisbiga wadani oo halkaasi ka hadlaya hadaladoodii waxa kamid ahaa sida tan waxaan siinaynaa dhakhtar Maandhe ee Burco dhakhtarka dhimirka dadka jiifa ama la daryeelo ee jooga in xisbiga wadani anagoo ka soconna anigoo xogayaa arrimaha gaarka ah Xuseen Asad iyo Ayaan Cali Xuseen Anwar Sheekh Cabdalle iyo Ikraan waxaan guddoonsiinaynaa gudoomiyaha dhakhtarka Maandhe awrka hilibka ah oo xisbigu ugu deeqay in maanta ay ku qadeeyaan jiifka jooga dhakhtarka Maandhe Burco maanta waxaan joognaa cisbitaalka Maandhe waxaan joognaa dhimirka aha Togdheer sida uu gudoomiyaha maamul hore uu sheegay waxaana awrka ugu deeqnay tan xisbiga wadani waxaan kaloo idin eegaynaa sida hore u sheemka aad korka ka taabatay inaan nahay xisbigu reeyay ee keenay ama soo xusay dadka dhimirka ah anagu waxaan wadanaynahay waxaan rumaysanahay xisbigu inuu dadka Somaliland joogo oo dhan ka xanuunsanaya ka aan xanuunsanayn mid waliba waa Somaliland kana maanta liita marka waxaan u garanay iyagu inay mudan yihiin in la daryeelo horta markaan hadii Ilaahay yiraahdo aan qabsano maamulkana aan wadanka qabsanana annaga waa qodobada ugu horeeya wax ka qaban doono dadka dhimirka ah dhalinyarada ciidamada sidoo madaxweynaha iyaga hore uu sheegay yiri 250 ayaan mushaarkooda u kordhin doona waxa weeyaan waxyaabaha badan ee ugu horeeya inta liidato horta in kor loo soo kiciyo qaar ka mid ah dadka qaba xanuunka dhimirka iyo waalidiintooda waqtigaas ku sugnaa gudaha cisbitaalka Maandhe ayaa ka dareen celiyay deeqdan xisbiga wadani soo gaarsiiyay waxaan dadka ku boorinayaa inay ka warhayaan dadka dayacan dhimirka meel suuqyada wareegaysanayaan cid lahayn hoy lahayn gidaarada hoosta jiifta dadka dayacan aad iyo aad laga warhayo madaxweynaha mustaqbalka ee ugu soo socda ee gobolka Togdheer Burco imanaya ee maantana ku soo muuneeyay awrka loo qalaya dadka anagu se guriga dadkii noo jiifana ka qaylahay dawlad khayr qabta nooga dhigo Cabdiraxmaan Ciro Ilaahay kor ha u qaado agaasimaha cisbitaalka Maandhe ee magaalada Burco Naasir Maxamed ayaa dhankiisa u mahadnaqay xisbiga wadani aad iyo aad ugu hadlay xisbiga wadani loo keenay awrkan intii wuxuu ka mid yahay xisbiga qaranada ka jira wadanka laakiin waxa loo keenay awrkii ugu horeeyay ee loo keenay geelba xisbiga wadani loo keenay aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa ilaa madaxiisa ilaa majiisa dhinaca kale mas'uuliyiinta xisbiga wadani ayaa si ay u soo bixiyaan deeqo noocan oo kala safar ugu baxay deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer iyadoo ay xusud mudan tahay in waftigaasi ay kala hayeen saddex wafti oo kala hogaaminayeen hogaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan madaxa kaambeynka gobolka Togdheer Ibrahim Yuusuf Jirde iyo gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Saleebaan Doob iyadoo ay saddexda wafti ay kala tageen deegaano kala duwan oo kamid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer wa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Somaliland